400 iyo 70 mijood oo noocaas oo jawaanada basasha iyo baradhada la soo dhexdhigay ayaa ciidanka boolisku xalay qabtay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa booqday xarunta birmadka ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland halkaas oo lagu soo bandhigayay maandooriyaha xashiishada oo ciidamada ammaanka ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay gacanta ku soo dhigeen kadib howlgallo ballaaran oo ay qaadeen taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale ayaa ka warbixiyay howlgalka ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku soo qabteen maandooriyaha xashiishadii u badneed xalay aynu qabanay oo maaragtay iyadoo khashinka ugu xuna oo 470 mijood waxaan ay ku sheegaan oo wadankeena oo dhan sakraamin karta inagu shaqooyinkeena caadiga baynu haysanaa madaxweyne waxa ciidankan uu diyaar yahay ciidamada Soomaaliland ee boolisku meel kasta ay joogaan tuulo kasta iyo gobol kasta waxay u diyaar yihiin shaqooyinkooda caadiga iyagoo haysto shaqooyin badan haya laakiin imika qorshahan dabargoynta daraagiska kala nooc ee faraha badan inay qayb weyn ka qaataan oo habeenkooda madaxweyne xashada halka taalaynta la midaba soo qabtaan. wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa iftiimiyay qorshaha qaran ee lagu la dagaalamayo mukhaadaraadka si bulshada looga badbaadiyo dhibaatadiisa. shalay u dambeysana waxaanu isugu yeernay guddi odayaala oo isxil qaatay oo booliiska iyo guddiyada nabadgelyada xaafadaha la shaqeysa oo madax dhaqameed oo cuqaal iyo odayaalintaba isugu jirta. barnaamijka waxaan wadnaa bahashaas unaka arkayna imika halkaas taala ee jawaanada ah tirsan baalka waxaanu doonaynaa ololaheedu inuu gaaro ilaa iyo magaalada xaafadda aqalka inuu gaaro. ciidankan booliiska qayb weyn baa imika ay ka qaateen waxaan ku dhahdaay draagiskan waxaa hadda xiran 1,100 baa xiran eedaysanayaal oo lagu qabtay mukhaadaraadka noocyada kala gedisan 6 bilood u dambeeyay dhammaan gobolada dalka. waxyaalaha qaarkood waad yaabaysaa khamriga oo kale 26,000 iyo jarjar 27,000 ku dhawaad ayaa la hayaa oo la qabtay 6 bilood u dambeysay. marka foostooyin loo rogo waa 1,200 oo foosto. Soomaaliland oo dhan mar bay wada sakraamin karaysaa intani Soomaaliland oo dhan xashiishadan bil iyo googoba ina wada seexinaysaa. marka imika xoog iyo dardadgelin badan baa lagu wadaa. waxaan doonaynaa markaa inaan hoosna u daadejino. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ku hambaliyay shaqada ay qaranka u hayaan. ciidamada la yiraahdo ciidamada amniga qaybta security-ga oo dhowr nooc ah oo 24 saacadood qofku uu shaqo ku jiro. waxa hubaala ninka booliska 10 sano ka shaqeeya ee si dhab ah hawsha booliska u qabta inuu la mid yahay 40 sano shaqeeya. waayo maalinta uu bolisku shaqeynaya waxay la mid tahay 2 maalmood maadaama aanu saacad qura maskaxdiisa shaqo ka baxay. xataa hadduu gurigiisa carruurta la joogo dareen war baa ku taagan. boliska hawl kale ayaa u taaloon ciidamada kale u oolin. bolisku wuxuu galay cadaaladii. ninka boliskii ifka iyo aakhiradaba cadaaladda saarnay aakhiro janno toosan uu ku tegi karaa cadaabna uu ku mutaysan karaa. cadaaladda la raadinayo ee dadkoo dhan leeyahay cadaalad baa la rabaa maxkamadda kana jira xaakimka iyo qofka garta qaadaya waxa koow ah cadaymaha uu soo qoro baaraha stationka jooga ama kiiska galay. hadduu baaruhu dalka dembi galiyo cadaalad darro soo qaado uu xaakimku xukumo oo madaxweynuhu saxeexo oo ninkii lagu dilo wuxuu ahaa nin qaranka maaragtay dembi ka galay ama qof dilay oo dembigaas qaladii uu soo qoray ayay ninka baarihii halkaa ka soo bilaabay. xaakimkii dembi male oo xereeriyowga dembi male oo madaxweynihii dilka saxay dembi male. waxaasoo dembi wuxuu saaray baarihii. hadduu intaa xaqa soo maro si cadaaladana waa ahlu janno khayr shaqeeyey oo shar qaran ka qabtay. bolisku awoodda hawsha idin saaray dadka dheertiid ee intaad nooshiin idin saaran ee boliska ka wada muuqata markuu 40 jir gaaro ninka bolis shartu waa shaqeeyo 2 dhafoor buu dalooda cirrana waale way ka muuqataa dhibtu haya
laakiin haddaad dhibtaas sida wanaagsan u isticmaasho waxaa laga yaabaa if iyo aakhiraba inay cid wanaagsan ka hadho mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa ka warramay doorka ciidamada booliska ee jamhuuriyadda somalilan ay ku leeyihiin dhismaha qaranka iyo horumarintiisa baayac musharadda dhaadheer muu dhiseen meeyara xashiish muu ururiyeen jaamacadana lama galeen wasiirro gaari qurux badan ma kaxaysteen oo taay ma xidheen madaxweynena meelaha gacmaha ma taagtaageen intuu halkaas soo taago haddaanay buriisku u godowoobeyn oonay u dhimanen oo daafacayn qaranka iyo ciidamada kale ammaan waxaan iska rabaa markaa oon kula dardaarayaa awooddaa laydiin dhiibay ee nasiibka u yeelateen ee dhib iyo dheef iyo ajar iyo aakhiro cadaabba keeni karta inaad si wanaagsan iyo waddada wanaagsan u martaan ilaa iminka buriiska somalilan uu ka tilmaamay gobolka geeska afrikaanu degannahay ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan xarunta ciidanka booliska ee jamhuuriyadda somalilan